فائسة أحمد خالد وأرضيات فصل كأفراد دكسي السريع جنبول جروي وحيكون شرطة حلقة ومشى وزارة وحبرشة أيها أفضل ضيسين سن امتحان كهرين ساك مركي وامتحان كفرمي أقاسمها جودة وزارة وحبرشة وزير الدولة وزارة داس هي مسؤولين كلا أيها كبغضي جوري جدا وحين هالكاسي كوجليسين امتحان كشهادة جاي بنتلان يضو صدح يطمن عشاء وملا وحا وزارة أي ديارسي كرميرها وينه oo la socday imtixaankeeda inta aysan hadal kooban oran Faa'iiso waxa guriga ay ka degan tahay warbaahinta kula hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Maxamed Cali Faarax waxa markaa muhiim noo ahayd inaanu ku soo booqano gurigeeda oo imtixaan looga qaadayo Faa'iisa Axmed Khalid oo ahayd ardayad kamida ardaydii imtixaanka sanad dugsiyeedkan galeysay kaas oo loogu talagalay imtixaankan ardayda galeysay in meel kasto ay joogan iyo duruuf kasto ku timaada marka laga reebo ardayda la tacaalaya xanuunka corona oo ilaa hadda aan hal arday hayno inaanu la u tagno guryahooda ugu tagno oo aanu imtixaan kaga qaadno ardaydan waxay ahayd ardayad dugsiga sare dhiganaysay waxa lagu sameeyay qaliin oo ay dhashay qaliin baa lagu sameeyay waxa ay ku jirtay muddadii dhaliinka runtiina waxa xaq ay u leedahay inaysan xaqeeda ku waayeen inay ardayad tahay haddana ay hooyo tahay annaguna aan ku faraxsanahay dhiirina gelinayno iyadoo hooyo inay wax barato oo ay ka qalin jabiso iskuulada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Faa'iiso waxaan leenahay imtixaanka Allah ku fududeeyo waxaanu mas'uuliyad naga saaran tahay shacabka iyaga ardayda dhalaanka ay wax baranaya inaanu waxbarashadooda adkayno u sahalo u fududeyno ku gaaro guryahooda duruuf kasto timaadana aan kula macaamilo dhinaca kale agaasimaha Maxamed Cali Faarax oo ka hadlayay xaaladda arday uu ku dhacay COVID-19 ayaa sheegay inay la socdaan xaalkiisa marka uu soo bogsoodana uu imtixaanka gali doono waxa jiray sanadkan oo xanuunka corona nagu dhacay in ardaydu ay kala fogaanshaha la ilaalinayay waxa jiray arday iyo waalidkiis aniga agaasimaha imtixaanaadka xalayna la soo xiriiray oo noo sheegay in uu la tacaalayo ama uu hayo xanuunkii coronavirus sida la adigeedna uu na weydiiyay maxaa uu noqon doonaa xalkaygu waxaan u sheegnay xanuunkan ilaah baa keena waa ku mahadsan tahay inaad nala soo xiriirtay oo aad noo sheegtay in xanuunkaas uu ku hayo waxaan u sheegnay inaysan waxba ku dhaafi doonin waxaan u sheegnay inuu ilaahay marka uu ka caafiyo oo aan ilaahay caafimaad uga baryayno oo uu shahaadadiisa negative ka soo qaato coronaha in wasaaraddu ay u xalin doonto wixii marka isaga uu tabayay oo ahayd inuu imtixaankiisa helo oo la noqon doono ardayda asxaabtiisa ah waxa qiimeeyna loo sameyn doono hadii la hadmo oo imtixaankiisa uu gali doono si la aligeed waxaan u sheegnay inuu niyadiisa dejiyo caafimaadkiisa ilaahay uu maartay ilaahay uga baryo xaaladiisa uu dejiyo uu iska sii wato cibaadadiisa iyo hawlihiisa kaleeto marka uu soo caafimaadana wasaaraddu ay xalin doonto waxaan aad uga mahadcelinayaa waalidkiisa iyo isagaba oo gartay wacyiga maanta lagu jiro iyo dhibaatada uu xanuunkan inuu ku hayo coronavirus nalana soo xiriiray maadaama aan awal anagu fariin u dirnay ardada oo dhan aan leenahay ardayga dhibaatada la kulma oo negative kaas uu noqdo marka la baaro inuu ardada walaalihiisa badqabkooda ilaaliya laga rabaa marka garawshiyaha ay sameeyeen uga mahadcelinayna wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada oo hogaaminayay mas'uuliyiintii Faa'iiso ugu tagay gurigeeda ayaa ilaah uga bariyay inuu imtixaanka ku guuleeyo aad nasiib wanaag waa inaan helnay Faa'iisa oo runtii hooyo ah qaliin gashay runtii dadaal ballaaran markii horeba ugu jirtay inay iskuulkeeda isku wado hooyanimada iyo waliba iyadoo la soo kulantay duruuftii ahayd in ay ilmaha caloosha ku waday maamulkan dawladda Puntland iyo siyaasadda wasaaradda waxbarashaduba waajibka iyaga weeye in aanu arday kasta duruufta uu ku jiro ula macaamilo sida uu ugu fudud aanu wax ula qaban karnaa inaanu sameeyno ilaahay mahadi weeye in ay Faa'iisa iyadoo guriga joogta xanuun kasta ha qabtee dadaalada faraha badan iyadoo ku jirtay inay suurtagal u noqotay in ay imtixaankiina maanta diyaar u tahay iyadoo qalan oo ay rabto in ay ka gudubto dugsiga sare iyada oo xaaladda adag ku jirta xaleenay Faa'iisa waa loo garab taagan yahay kaliya matid wasaaradda iyo dawladda iyaduba aad bay duruufaha diyaar ugu tahay waxaan jecelahay inaadan culays isa saarin imtixaanku waxaan filayaa waa mid aad ka bixi karto oo mid ku fududaan doona hadii Ilaahay ka dhigo maadaama aanu soo tixgelinay halkaaga lagaga qaadi doona maalin walba
inta imtixaanku ku dhamaanayo hadii Ilaahay ka dhigo waxaan ku rajaynaynaa inaad ku guulaysato imtixaankan duruufo kasto adag aad ku jirto oo aragnaa in kiniina iyo biyo iyo ay ku garab yaaliin haddana aad diyaar u tahay inaad imtixaanka qaadato marka guul baan ku rajaynaynaa waana kugu garab taagannahay duruuftaada adag iyo caafimaadkaaga sida uu yahay wixii aad u baahato inta aad ku dhex jirta imtixaanka ama caafimaad ku salaysan ama wax kale ku salaysanna waa lagu garab taagan yahay waana ku garab taagan waana ku joognaa hadii Ilaahay ka dhigo qof baa maalin walba kula shaqayn doona duruufaha aad ku jirtana kula xalin doona hadii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad baad u mahadsantahay Faa'iiso oo iyana hadashay waxay sheegtay inay ka filaysay wasaaradda waxbarashada inay sidan sameynayaan bismillaah awalan assalaamu calaykum dhamaan waxa u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada iskoolkayga maamulkayga waan ku faraxsanahay in exaamkayga guriga la igu keenay waana waxaan ka filay wasaaradda waxbarashada inay exaamkayga igu keenayaan guriga 16,500 oo arday oo isugu jira fasalka afraad ee dugsiga sare iyo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ayaa deegaanada Puntland imtixaanka u fariisay 7,000 waa haween Cabdixakiin Xuseen Xasan Radio Daljir Garowe